السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا دين سلام يا قيادة شرفت له سلام كدي بقيادة جعلها هاي ما أنت وحن ربا ستة قضب ومهم قفك الشغلة أنت إن إنك الله ستة قضب وحين قندونا أنت أنا قضب ستة ده أنا أوجد بين وحن ربا إن إذا فيديو لبس سؤال كواد وحين قندونا متى هيقف يعني شغلة يمين الشغلة أنا هذه جوابته تعيها فيديو أو فيديو أي دعوة لما يسوء sidoo kale su'aasha labaad waxay tahay ma ka walwalaysaa inay kugu dhacdo shaqo la'aantaas oo ku jirta wadanka haddii tahay jawaabtaadu haa videogan sidoo kale waa videogaaga ee daawo insha Allah qodobka koowaad wuxuu noqon doonaa sidaan hore u sheegay waxaan ka hadli doonaa saddex qodob oo muhiim u ah qofka hadduu rabo inuu helo shaqo kasta oo xirfadiisa ah qodobka koowaad wuxuu noqon doonaa ha aqbalin inaad ahaato shaqo la'aan iminis shaqo la'aan markaad ka hadlayno qofka hadduu dhaho tusaale ahaan shaqada iyo shaqo la'aan noqoto iminis ha isdhihin shaqo la'aan ha noqotay iska fadhiiso shaqo iyada ku imaanayso shaqo weligeed kuma imaanayso shaqada waxaa la rabaa in la raadiyo the main purpose oo shaqo lagu helaa waxay tahay in la raadiyo qofka markuu isdhaho shaqo la'aan qabsatay horta su'aasha koow isweydiinayo inay noqotaa la rabaa shaqo la'aanta maxaa kugu riday maxaa kaa maqan maxaa la rabaa inaad baratid maxay tahay shaqada wax kuu diiday halaas haddaad isweydiisid waxaa noqon doontaa qof shaqadii uu rabay hela qodobkaas waxaa waaye qodob muhiim ah qodobka koowaadna waaye wuxuuna ka hadlaa inaan dhahnay ha aqbalin inaad shaqo la'aan ahaato the more aad ku fikirtaa inaadan ahaanin qof shaqo la'aan ah waxay noqon doontaa inaad shaqo heshaa kaas wuxuu ahaa qodobkii koowaad qodobka labaad aan u gudbaynaa insha Allah qodobka labaad wuxuu ka hadlaa baro xirfadaha daruuriga ah يعني xirfadaha daruuriga ku ah baro means qofka markii laga hadlaayo shaqada markii lagu siinayo wax lagu siinayo ma ahan in aad xirfad lahayn oo kale shaqada waxay u baahan tahay xirfad inaad u leedahay tusaalahan waxyaalaha muhiimka u ah qofka in laga rabo inuu barto waxaa ka mid ah computerka oo kale qofka markuu barto computerka wuxuu bartay first priority oo shaqo lagu raadiyo means waxaad ku diyaarsan kartaa computerka CV tusaale ahaan hadda dadka badanaa waxay sameeyaan qof ay u tagaan waxay dhahaan bro CV-gan ii diyaari waxaan u baahanahay CV-gan inaad ii diyaariso waxaan u baahanahay CV-gan inaan shaqo ku raadsado qofka wuxuu rabo kuu qori karaa waxa adig u baahan tahay oo aadan garanaynin oo kuu qori karaa markaad shaqada tagtaa hadhow waxa kuu soo bixi doonto in lagu qaadan waayo waxaa muhiim ah inaad barato xirfad si aad uga horumarto qof walba oo isku cilmiga aad tihiin sidee loogu horumaraa qof يعني أساقا يعني قف أذيك كل مدة سيدا وجوهر من كرتا مركز ربتيد إن عدتك كسر موقتا وحالا برتاح حرفضها بدنا عدتك أي حيسيان حرفضها مركز برتو حرفض وحكا عاوين إيسا إن عد لبداك تودتك ويدل حرفض هذا موجدتك إن عد حرفض لهذا هذا موجدين حرفضات يعني وحكو أهان دون تعميد أذيك كو قرصن laakiin banaanka ku soo bixi doontid sidoo kale asxaabta inaad la wadaagtid xirfadaada hadii aad dhahdid xirfadeeda ana xaasanahay means meel ma gaaraysid mar walba waxaad ahaan doontaa qof liita oo shaqo la'aan ah xirfadu waa muhiim qodobka labaad wuxuu ahaa sidaan u sheegay baro xirfad gaar ku ah yani xirfad muhiimad ku siinaysa oo haddana wadanka ka jirta oo loo baahan yahay wadanka inay wax ka qabato haddii aad barato xirfad looga baahnayn wadanka means waxay ka caawin doontaa mustaqbalka fog markii uu wadanka soo gaaro marka waxaa muhiimada la siiyaa mar walba xirfada wadanka ka shaqeynaysa inaad barato qodobka saddexaad ayaan u gudbi doonaa oo ah samee xiriiro badan means waxaan ka wadaa meeshan markii laga hadlaayo xiriir badan markaad sameynayso yani waxaa laga wadaa asxaab badan sameyso asxaabta badan markii laga hadlaayo shaqo raadinta 90% shaqada waxaa kula wadaagi kara asxaabtaada 10 soo hartana waxay noqon kartaa mid internetka la soo geliyo oo lagu dhaho shaqadan ma u qaadaa tahay qof shaqadan raadinaya shaqadan way ku baahan tahay in la soo xiriir noo soo gudbi laakiin 90% waxaa la isku siiyaa shaqada qof in la kasay graduation
graduation marka ka hadlayno graduationka lagu noqdaa graduationka marka laga hadlayo shaqo in lagu siiyo yani in adeer in abti yani qofkan meel uu leeyahay lagu xareeyo aadan cilmi u lahayn mid waa taas mid kale waxa jirto shaqo graduation la dhahayo means taas waxay ka madax banaan tahay saaxiibkaaga xirfad waa leedahay laakiin waxa ku soo helay shaqadan saaxiibkaaga kula wadaagay sidoo kale shaqada waxa ku soo gudbiyay saaxiibkaaga soo asxaabtaada la wadaag inaad shaqo laadahay tusaale ahaan hadii aad leedahay 10 saaxiib oo 10 asxaab oo kamid ah saaxiibadaada hadii aad u sheegto aad dhahdo shaqadaas dad aragtaan in la soo xiriira yani waxa qasab noqon doonto 5 kamid ah ama 4 kamid ah in shaqada kula soo wadaagto shaqadaasna aad ku guuleysato taasna waxa waay qodobkii saddexaad oo ugu dambeeyay qodobkan waa qodob muhiim ah inaad asxaab samaysato asxaabtaas oo kula wadaagta in aad u baahan tahay shaqo hadii aad la wadaagto inaad u baahan tahay shaqo hadhow waxa dhici doonto inay kula soo wadaagaan ay dhahaan hebel iyo hebel يعني shaqadaas banaan xirfadeedan uu leeyahay aan waxaan u sheegno soo taas waxay ku fududeynay marka in aad shaqada ku biirto soo saddexdan qodob waxaan filaa inaad ka faa'iideen hadii aad saddexdan qodob ka faa'iideen waxaan la idin leeyahay waxaan soo badin doonaa qodob sidaan oo kala ku saabsan soo hadii aad channelkan ku cusub tahay subscribe sa videoan ama qodobadan kaga soo hadlaya dad ka heshay like sa sidoo kale commentiga igula soo wadaag waxaad u baahan tahay ama xogta aad rabtid inaad la wadaagtid share garay asxaabtaada la wadaag videogan soo waxaan idin leeyahay insha Allah intaan video lamid aan ku kulmi doono wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nabadgelyo